إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه يقول كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dadii uu qaadirkeeni wacnaa qaata amarkiisa alxamdulillaah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وعن قبل بين آيات اللباتنية السقال كم إذا سورة الرعد قال الله تعالى إلهي بأوحد الذين آمنوا ددك إلهي الرمية وعملوا الصالحات عمل هذا وناكسن السمايي طوبى لهم وحيليهم وناك وحسن مآب يمال في عنا الله بنا يا آخرة كذلك السدا ذيك أن قدرنا أرسلناك أما كذلك السدا رسول ظهر أن قدرنا أرسلناك في أمتي نبي محمد وحان كاس ونحسران قدرنا أمت قد خلت من قبلها هرتي ذي تجين أمضه أمدا كوري لتتلو عليهم سياد قد الأخرضة الذي أوحينا إليك قرآن كان كورا حيوني وهم يكفرون بالرحمن إله الرحمن كأبي كقالوا بيا قل وحات النبي محمد هو ربي وإلهي الرحمن لا إله إلا هو إله حق لقو عابدا مجرى إساق موياني عليه توكلت إساقان ترساتان أرهن كأوليبتي وإليه متاب إساقان أنو توبت كينا يا مرو الباء تنبداف ويدي سنة ألا وحر ولو أن قرآنا هدي قرآن سيرت به الجبال بورها لقو سعودسيه أو قطعت به الأرض أما دولك لقو شرشره أو كلم به الموتى أما ضدك الانتي لقاها لها لكان هذا القرآن وي قرآن كانوا نقول لها بل لله الأمر جميعا وحاتلا تلاذو أردن إلهي بأوسقنا توسكله إلهي بقوان كي أرماله أفلم يأسبوا لها إلميانك قوصا الذين آمنوا تدك إلهي رميي ألو يشاء الله هدور ربي دونيو لهذا الناس جميعا تدك أردنوا هانون لها لكن والدونين ولا يزال الذين كفروا كوي قالوا بي مكسوليان مسيغيان وي تصيبهم من كل عضب بما صنعوا دنبغي سميين درادي قارعة بلايا إن كل عضب تام مسيغيان أو تحل أما بلايا داسي أي دكتو قريبا من دارهم كريهوده ميلو دو حتى يأتي وعد الله إلى ومن يبلنك إلى هاي وقاضي إن الله لا يخلف الميعاد إلى هاي بلنتي سكببحه ولقد ابنما استهزئ وحلقوا ليالي برسل من قبلك رسول الله أديك كاهو الرئي النبي محمد وقالوا وكوشاس جاسين فأمليت وحن عكته ودقونو كادي للذين كفروا كوي قالوا بي ثم أخذتهم مركاسان كذب قبطيبول هايلي فكيف كان السلابو هذا عقاب كي يسدون نقضيباء الهو هو اللوغيو ولا قرن تدك ذكرها iyo diinta ilaahay macaansada ee deganaanshaha ay siiso diinta ilaahay waa dadka alla yaqaanka iimaankana leh allahoodana ka cabsada amal fiican sameeya alladina aamanu wa amilu saalihaat wuxuu ilaahay u yabaha inay leeyihiin tuuba lahum waa wanaagaas mid adduunyada uu noqon karaa waa sacaadadii iyo raaxadii adduunka mid aakhirana uu noqonaya jannu noqonaya wax kastay ku farxaan weey wanaag waxa leh qof ilaahay ogol oo rumaysan weey subhanahu wa ta'ala man amila salihan falinafsi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa nolosha macaan wa noloshu maalka iyo adduunyada manfaceeda kuma macaanaata iimaanka iyo ya alla ka cabsiga iyo adaabta ilaahay laga ereebsaday ku wanaagsanaataa طوبى لهم جنة ولا قفصرة
iyo meel wanaagsan ay u noqonayaan aayuhu hadduu kaa xumaado waa inkaar marka aayaha u hagaagaya iyo aakhirada u hagaagaysa istiraaxu wuu u dambeeyaa hadday kula yaabeen waxba yay kula yaabin buu lahay ummada adiga kaa horreeyeyba rasuulaan u diray adigana ummaddan aan kuu soo diray kadaalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha adiguna rasuullada umaad horreyn nimankanina ummadaa umay horreyn waddadii rasuulladii hore marayeen baad maraysa iyaguna waddadii ummadii horey marayaan marka ummaddu waa laba qaybooda ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummaddii baaqa loo fidinayay oo gaaliya islaamba way leeyihin waa ummaddan adduunka ku nool oo dhan ummatu lijaabana waa intii nebi maxamed aqbashay sala allahu calayh wasalam iyo diinta haddaba adigu waxaad u sheegtaa waxaad ku akhridaa baan leeyahy dadkan kitaabka ilaahay kitaabkanaan kuu waxyooday dadka ku akhri oo ku waani oo ku wacdi sidaasaa rabbi uu tilmaamayaayo door weyn buu dadka hanuunintooda kitaabku leeyahy wacdi kitaabku ka marhanyayna wacdiba ma noqdo wacdi waxaa la yidhaahdaa markuu waxyigu ku jiro waa hadal haddii kale hadduu nin halkaa is soo tago maantao dhan uu idhahdo waxbaan wacdiyayaa oo aayadii xadiidoona aanu keenin le waa waxyigiie waa hadal qof caadiyahu laakiin dadka quluubtooda waxa qanciyo oo qabta waa kalaamkan ilaahay qalbiga ugu talagalay lidaalik baa nebi maxamed markuu gaalada ku akhriyo qaarkood baa islaami jira haddadan aynu joogno gaalada marka loo fasiree lagu akhriyo qaar baa yidhahda mabaan maqalba waxaani miyuu jiraa ma wax runaba daraasad sameeyo ku islaama idan markaa qalbigiiyo qur-aanku way isleeyihiin waa in lagu akhriyaa dadka oo loo sharxaa oo loo fasiraa oo la fahamsiiyaa oo lagu wacdiyaa kalaamka ilaahay sidaa ilaahayba uhi litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk wahum yakfuruuna biraxmaan haddana iyagoo ilaaha raxmaanka ka gaaloobaya ha ka daynin ilaa cudurkanaa kaga ba-aya cudurkan gaalnimada caafimaadkiisu waa qur-aanka gaalnimada waxay ku timaadaa qalbigoo bukooday qalbigana qur-aanka qanciyo daweeya adiguna dhaadoo waxaad tidha huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wailayhi mataab anigu ilaah kale ma haye allahun baan hayaayoo isagaan ku tiirsanaa tiirka u weyni waa isagaa ii ah mar walbana markaan isgaran waaye isagaan u toobadkeena aan kusoo laabta ilaahaaga ku faan cid saa ugu faani kartaa ma jirtee nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxay weydiisteen mucjisa oo yidhaahdeen miyaa mucjiso lagu soo dejiyo sida ay sheegaysa aayadda 7 wayaquulu aladiina kafaruu lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbi bal maa mucjiso la siiya bay idhahdeen mucjisada weyn inay qur-aankan tahay baa ilaahay uu sheegay kaasaa ilaahay wuxuu ihi haddii qur-aan intoo la soo dejiyo buuraha uu dhaqaajin lahaa ama dhulka lagu jarjari lahaa ama dadkii dhintay intoo lagu akhriyay ay soo bixi lahaayeen qur-aanka miisaankaali waa kan markaa mid kaleba muu kaalintan galena kanaaba geli lahaa baa ilaahay uu marka kii intanba samayn lahaa way hayaan manay ku qancin aayadda kale doonayaan waa maxay ama haddii markaa jawaabu low waxay noqonaysaa lakaana hada alqur'aan walow ana qur'aana suyirat bihi aljibaal aw qudicat bihi alard aw kullima bihi almowta lakaana hada alqur'aan ila ilahay wuxu uhi low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah buuruhu way dildilaaci lahayn haddii basharka halka laga soo dejiyo qur-aanka buurta lagu soo dejiyo jawaabu low si kale way isu bedeli kartaa haddii qur'aan la soo dejin lahaa saddexdan arrimood sameeya la kafaruu way ka gaaloobi lahaayeenoo may rumeeyeen labada way noqon karaa idan markaa jawaab waxay u tahay maa mucjiso la siiya dee la siiya miyaad rumaysa kumay qancina bal lilaahi lamru jamiican bal iska soo dhaaf wax codsigoodoo arrimaha ilaahay baa leh ilaahay bay ka go-aanoo nimankaasi waxay yidhaahdeen waxba maa loo jawaaba iyo maa codsigooda la keena ha odhanine siduu ilaahay qorsheeyaa wanaagsan talada ilaahay baa saxi raaca afalam yayas macnaheedu waxa weeye miyaanay ka quusanin dadka ilaahay rumeeyey hadduu ilaahay doono dadkao dhan inuu hanuunin lahaa taa may meel iska dhigaanoo may ogaadaan inay xigmadi ku jirto sababtu ilaahay dadkanoo wada hanuunin waaye inaanu ilaahay dadka wada hanuuninayn miyay taa ku qancaan oo hanuun dadkoo dhamme ay wada hanuunaan may ka quustaan
macnaha ku dadaalina oo ha ku fikirina inuu dadka oo dhan wada hanuuno horaa la idinku sheegay dadku inuu qaybsan yihiin meeshan ay geediga ku yihiin aakhiro ayaaba laba meelood lagu kala shubmaya marka dadkan adduunka sii marayaana labadii nooc bay isugu jiraan marka ka quusta inay dadku wada hanuunaan idinku hawshiinu wada iyo dadka inaad diinta gaarsiisaan yaas waxa kaloo lagu macneeyay bimacnaa yaclam oo qofku markuu wax ka quusto waa maruu dee wixii ogaaday inaanu wax jira ahayn marka way kala laasimayaanoo way istaba socdaan afalam yayas bimacnaa afalam yaclam miyaana ogeyn dadka shahaadanayaa hadduu ilaahay doono inuu dadkao dhan wada hanuunin lahaa taa garta oo xikmadda ilaahay la jaan qaada walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bimaa sanacuu qaarica dadkuba hadday ilaahay ka gaaloobaan kama suulayaan oo ma seegayaan inay qaarica ku dhacdo qaaricadu waa maxay waa balaayo balaayo dhinacyo badan kaga timaada mid dabiiciyaa ku iman waxaa ku iman doonta miduu ilaahay ku soo dejiyo gacmaha muuminiintoo lagu sallido cudurro iyo cadow cabsidaa ku badan qaarica waa musiibatun taqracu calaa ru'uusihim wa quluubihim mid garaacda ilaahay uu karbaashi doonaa waxa lagu karbaashaya lagu garaacayaana waa bimaa sanacuu waxay sameeyeen dadku markaa halkaa waxaad ka fahmaysaa gaal waxa hanti u ah ciqaaba leh oo kolley iyo kolley baa u diyaara aw taxullu qariiban faacilku waa qaaricada aw taxullu lqaaricatu qariiban min daarihim ama balaaya gaalka ma fogee haddaanay ku dhicinna way ag fadhidaa waa balaayadaas kol hadday ummaddu ilaahay ku gacan saydhaan balaayadu way hareera taallaa agtooday tubantay ama way ku habsan ama in yar bay u jirtaa marka iskaga baydh wuu ibtilaysan yahay qofka ilaahay ku gacan saydhay waxa ku dhacaya ee u diyaarkiyuu kugu habsan culimada qayb ka mida waxay ku fasiraan faacilka in nebiga loo celiyo sala allahu calayhi wasalam oo waxyaabuu ilaahay ku garaacaya gaalada waxa ka mid ah gacmaha mu'miniinta aw taxullu anta yaa muxamed qariiban min daarihi ama adiga laftigaagu adigoo lagugu garaacaya kuwan ayaa deegaankooda agtiisaa degi doonta adoo weeraraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam yowm min alayaam ayuu gaalada soo weeraray iyaga oo qaflad iskaga jiro oo majarafadahoosii sito oo beerihii falanaya markaasay arkeen ciidankii nebigoo soo kala baxaya oo weerar bilaabaya ayuunbay indhaha ku dhufteen midba meel buu ka dhacay muxamedun walkhamiis muxamedun walkhamiis bay leeyihin waa muxamed iyo colkiisii muxamed iyo colkiisii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmaduu ku dhawaaqay tan u eegoo waxau ihi allahu akbar kharibat khaybar inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmi fasaaa sabaaxu lmundariin ilaahay baa weyn buui annagu kol haddaan qolo ilaahay ka gaaloobay duleedkooda soo degno annagoo weerarayna waa baas baa kuwaa u baryay buui rasuulku sala allahu calayh wasalam fasaaa sabaaxu lmundariin kuwo loo digo waa baas baa ugu baryay buui kuwaa ilaahay diiday sidii buu ku bilaabay dagaalka aw taxullu qariiban min daari adiga laftigaaga qaaricadiioo ilaahay cadowgu wuxuu ku sallidayaa awliyadiisa guriyahooda agtoodaad soo degi doonta balaadaasi way ku soconaysaa xataa ilaa intii yatiya wacdullah ballanka ilaahay u yimaado oo ah maxay dee qof walba marbaa tiisa loogu iman marbaa nafta laga qaadiyo ilan ballan buu ilaahay u qaado aakhiru u safri mid waliba adduunkana iska warwareego mashaakilkiisa ku dhex jiro oo balaadaasa ku dhacdee markay u dhammaato wey ilaa inta wacdiga ilaahay imanaya ama ilaa inta qiyaamuhu dhacayo in allaha laa yukhlifu lmiicaadna waxay sheegaysaa ilaahay ballankiisa kama baxo ballankuu muminiinta u qaaday wuu siin ballankuu gaalada u qaaday waa ula diyaar ilaahay ha ugu soo hagaagina sida dadka u abuuray oo kale nebi maxamed ilaahay wuu samirsiiyo waxaa la yidhi la qabso oo waxa ku helay shisheeyaha kaa soo gaadhay ee jeesjeesa ee dhib ah ee cay ah ee xaqiraad iyo xumayna keligaa kugumahe waa lagaaga horreeyey wanaagganaad waddaan waxaa iska leh dadka buka markaa dawada ula timaado wax badan baa kaaga iman walaqad istuhzi'a birusuli min qabli waa lagu dheeldheelay rasuuladii adiga kaa horreysay sida adigaba lagugu dheeldheelay faamlaytu liladiina kafaruu uma akhadtum fakayfa kaana ciqaab gaaladii waan u kaadiyey kadibna waan qabtay ciqaabkayga siduu noqday meeshiisii buu ilaahay u dhacay
haddaadna su-aashay aragnoo qur-aankaad noogu sheegtay cadowgaaga sidaad u ciqaabteed ula dhaqanto jawaabtu waa taa faamlaytu imlaagu waa imhaalka yumhil wuu u kaadiya ilaahay walaa yuhmil ihmaalkuma sameeyo iskama ilaawo laakiin wuu kaadiyaa rasuulku salى الlahu عalيه waslm siduu ku lahaa xadiidkii صaxiixa ina اllaha laa yumli liلظaalim qofka daalimkaa ilaahay wuu kaadiyaa u kaadiya u kaadiya ilaa dadka qaarkood dabada ay yidhahdaan malaha kana hagaagsanba xataa idaa akhadahu lam yuflitu markuu qabtana araxdu ka jabiyaa si deg dega maba si riiqriiqo ma joogjoogaba marka aayaddaasuu rasuulku daliishaday salى الlahu عalayhi wasalam wakadalika akhdu rabbika idaa akhada اlqurى wahiya ظaalima ina akhdahu aliimu shadiid halkana la yumli buu xadiidku ahaa halkana ilahay wuxu uhi faamlaytu marka u kaadinta kuwaa ilaahay u kaadinayo ha ku lugo-inoo inay saxan yihin ha u qaadan markaynu dib ugu noqono aayaadkiiyo fawaa'idkooda waxaynu arkaynaa kow alcamalu الصaalix huwa qiwaamu اliimaan falaa budda min alidcaan uma alcamal iimaanka waxaa markhaati u ah camalka saalixa ah arkaanta iyo udubadu ku taagan yahay iimaankeennu waa acmaasha saalixa haddaad tidhaahdo iimaan baan la imanaya aan acmaal lahayn waad kala kacsanta waxaad sheegaysaan dhab ahayn waxaa labaad aynu ka faa'iidaysanaynaa maa ancama xayaaةa اlmuؤmin اdunyawiyati wاlukhrawiya fadunyaahu maxfuufaة biطiib اlcayshi wاlidminaan adduunkiisa iyo aakhiradiisaba ilaahay baa u ballan qaaday qofka alle ka amal qaata inuu u raaxeeyo u barwaaqeeyo duuba allahum buu ilaahay yihi labadaba badhaadhaha iyo barwaaqada halka lagu helo dad badan way gafeene waa diinta arinta saddexaad waxa weeye tilaawaة الqur'aani calىa ummati min maqaasid الrisaala qur'aanka iyo dadka inay ishelaan oo dadka qur'aanka la gaadhsiiyo waa dawadoodii ujeeddada risaaladda wey wuxuu nebigu la shir yimi calayhi الsalaaةu wasalaam waxyigana u weyn waxyigaasi iyo ammaanadaasuu sidaa aayaduhu ugu qorayay gaalada marka uu had iyo jeer waraaqaha u dirayo madaxda gaalada aayadahaas ugu qoraya rasuulku salى الlahu عalيه waslm yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilىa kalimati sawaaءi baynana wa baynakum ninkii hiraqle la odhanaya romanka ka madaxdaha markuu warqada u qorayo subxaana rabi اxaliim calىa man casaahu inahum layakfuruuna bihi wayuqaabiluhum biاlإxsaani ilayh ilaahay baa dulqaad badan bal iyagoo ka gaaloobaya ayuu haddana ilaahay arsaaqaya oo amni siinaya oo u barwaaqaynaya oo weliba uu diyaar u yahay hadday toobad keenaana waxay galeen inuu ka dhaafo ilaahay naxariistiisu badan ah waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a ana alhidaayata biyadi illaah hanuunka ilaahay baa gacanta ku hayo qaar loo dadaalayna ma hanuunayaan qaar aan lagu dadaalinna si dhib yar bay isaga hanuunaan marka inagu waajibkeenna un baynu gudanaynaa waafajinta allah iska leh taana waynu aragnaayo qof si dhib yar isaga hanuunaya ama hanuunka raadsanayaba iyo qof loo howlgaloo lagu xiiqayba oo aan hanuunkii helayn xiina laa yujdi daliil walaa yanfacu اlburhaan falaa budda cinda dalika min ashidda min shiddati اlmasaa'ib mar hadduu dadka diinta iyo daliilku anfici waayaan ha isaga diyaar ahaadeen dubbihii ilaahay mar hadday dadku ilaahay u dhagooleeyaan oo is-indhatiraan oo maqli waayaan waxa loo sheegayo waxaad ka eegtaa waxaan la mahadin ugu dambayntii nuqdada sideedaad fii imhaali اlmustahzi'iina biالrusuli cibraة lilmustacjiliin cuquubaة الظaalimiin dadkan intay gaaloobeen haddana ilaahay u kaadinayo cashar baa laynagu barayaa macnaheedu waxa weeye dulqaadka ha degdeginaya kol haddaanu kuwan ilaahay ilaawin oo uu og yahay la qabso oo ha yaabine ha odhani dee ilaahay buu ka gaaloobay oo kanuu sameeyey oo kanuu sameeye bal maxaa ilaahay u qaban waaye laa tastacjil cashar baa lagu dhigayaa ha degdegine iska sug baa ilaahay uu ku leeyahy subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان